xasadku markuu shakhsiga ku dhaco laba qaybood ayuu noqonayaa qayb gudaha ayay gelaysaa oo qofka gudihiisa ayay gelaysaa qaybna korka sare ayay soo fadhiisanaysaa qaybtan dhufays bay ku jirtaayo gudaha ayay ka soo dagaalamaysaa oo qofka gudihiisa ayay ka dagaalamaysaa qaybtana korka ayay joogaanoo xagga hore jiida ayay ka dagaalamayaan waa xasadkii qofka ku dhacay waa isla hal xanuun waa xasad markuu qofka ku dhaco laba isku qaybinaya qayb gudaha gasha iyo qayb korka sare soo fadhiisata oo xagga sare ka dagaalamta haddaba aynu gudubno qaybtan gudaha gashay maxay ka dagaalamaysaa sideese u dagaalamaysaa qaybtan gudaha gashay waxa ay la dagaalamaysaa qalbiga iyo maskaxda iyo dhammaan dareenka gudaha oo dhan bay la dagaalamaysaa maxay odhanaysaa maxay kula dagaalamaysaa waxay odhanaysaa waad xanuunsanaysaa waad xanuunsanaysaa waad xanuunsanaysaa waad xanuunsanaysaa waxaas ayay gelinayaan qofka oo gudihiibay ka soo dagaalamayaan qalbigii iyo maskaxdii ayay la soo dagaalamayaanoo hebelow waad xanuunsanaysaa heblaayoy waad xanuunsanaysaa heblaayoy waad xanuunsanaysaa markaasaa qofkii wuxuu ku leeyay waan xanuunsanayaa haddii aan weydiiyo oon idhaahdo halkee ku xanuunaysaa shaksigii wuxuu odhanayaa ma garanaya sheekh meelay xanuunaysaa ma garanaya laakiin waan xanuunsanayaa bal shaksiga ugu wanaagsan waa shaksiga ku odhanaya sheekhow dhammaantay waan wada xanuunsanayaa gebigayga oo dhan waan xanuunsanayaa meel iifayow ma jirto kulligay waan xanuunsanayaa buu ku odhanaya taasuna waxaa iska leh xasadkii gudaha galay qaybtii gudaha gashay baa iska leh marka shaksigii warwar iyo murug bay gelinayaan waxay odhanayaan waad xanuunsanaysaa heblaayoy waad xanuunsanaysaa hebelo waad xanuunsanaysaa hebelo waad xanuunsanaysaa ilaa uu shaksigii marka dambe dhab u xanuunsado waayahay kaas waa qaybtii gudaha gashay qaybtii xagga sare soo fadhiisatay maxay samaynaysaa bulshadii iyo mujtamacii ayuu dadka kala dagaalamayaa wuxuu odhanaya bulshada ha u tegin mujtamaca ha u tegin go bulshadii buu goynayaa mujtamacii buu shaksigu goynayaa suuqii iyo magaaladii iyo socsocodkii buu ka jarayaa halkaa iska joog buu odhanayaa cid walba uu ku dirayaa cid walba uu dhibsanayaa muxuu kale u sameynayaa wax kasta uu shaksiganu qabto uu xumaynayaa wax kasta uu shaksiganu qabto uu ka xumaynayaa wax hagaagsan oo uu u hagaajinayaaba ma jirto muxuu kale u sameynayaa shaksigii maxay ku sameynayaan labadan xanuun ee isla halka xanuuna hal mar bay labaduna waxa ay ka wada dagaalamayaan gudaha qofka iyo dibadda qofka qofkii oo iska shaqaysan jiray oo wax soo saar lahaa iska faraxsanaa shaqadiisa ku faraxsanaa lacag iska haystay si fiican noloshiisa u wanaagsaneed shaqaysan jiray bay shaqadii ku dirayaan wallaahi heblaayo ma shaqaysan karaysid hebelow ma shaqaysan karaysid iskaga tag shaqadii u iskaga ibi waayo shaqo kale ayaa loo soo helayaa warniya waxba ha shaqaysane iska daa buu odhanaya waxba ha shaqaysane iska daa dhammaan shaqadii oo dhan ayay ku dirayaan kii gudahuna waa ku soo dirayaa kii dibadduna aragtidii wixii uu arko wuxuu ku furayaa problem la idhaahdo in uu dhibsado kii gudaha wuxuu ka soo odhanayaa warwar iyo walaac buu gelinayaa warniyo iska daa waxba ha shaqaysane maba shaqaysan kartida iska daa shaqana maxaa kuu soo arkay markaasaa qofkii wuxuu noqonayaa qof xidhxidhan oo gurigii u dhex fadhiya bulshadii baa lagala dagaalamay iyo mujtamacii dibaddii socodkii wanaagii hadalkii fiicnaa baa lagala dagaalamay guriga ayaa lagu qabanaya waayahay shaqadii baa lagala dagaalamay guriga ayaa lagu qabanaya qofkii wuxuu is odhanayaa uu isla yaabayaa sometimes uu isla yaabay wuxuu is odhanayaa warniyo waad fadhidaa une shaqo tag marka uu shaqo tagana shaqadii oo dhan uu nacayaa uu kanaxsanaya iskaga imanaya naga daa buu odhanaya shaqo marabe mujtamacii iyo bulshadii markuu la kulmo ni waxaa ha u tegin iska daa hebel waa sidan heblaayo kale waa sidan meelba ha tegin meeshaas waa meel xun meeshaas guriga ayuu qofkii ku haynaya waayahay habeenkii qofku markuu seexdo uu soo boodaya uu sasaya uu naxayaa uu sasaya wuxuu tusayaa riyooyin xunxun waxyaabo xunxun sas iyo cabsi buu gelinayaa walidaalika sidoo kale xasadku wuxuu ku sameynayaa qofka
in uu khoof geliyo qofkii halkaa iska jooga ayaa iska baqaaya maanta haddaad hebel u tagto may ha u tegin uu ka baqaya maanta haddaad wadadaa marto may ha marin khoof buu gelinaya marka calaamadahaas oo dhan haddii aad leedahay daawadaadiibaa maanta hortayda taala kullu calaamaat haada waa calaamado xasadku iska leeyahay xanuunku waa xasad waa isla hal xanuun waa xasad hal shaksina uu ku dhacaya laakiinse laba u qaybsamaya markuu qofka ku dhaco midna guduhu gelaya midna dibadda ayuu markaas difaac ka gelaya mid dibadda ayuu difaac ka gelaya midna gudahu difaac ka gelaya kan gudaha markaa wuxuu qofka ku sameynayaa waad xanuunsanaysaa bal heer u gaadhsiinaya inuu qofkaasu dhintaba cuqdo darteed inuu shaksigaas u dhinto siduu u leeyahy waan xanuunsanayaa war meel ku xanuunaysaa ma jirto war dhakhtar baan ku geyno negative baa tahay war wadaadaan kuu geynayo shaydaan kuguma jiro war qur-aan baa lagugu akriyo shaydaan kuguma jiro war waa lagu shidayo waxba kuguma jiraan war dhakhtar baan ku geynay iskaan baan ku marin waxba waa lagaa waayay may waan xanuunsanayaa baa isaga haysata because gudaha ayaa lagala soo dagaalamaya marka insha allahu tacaala hadalka waan badinay xasadku labadaas ayuu qaybsamaa waana isla mid qofka marka uu ku dhaco ayuu qaybsamayaa qayb inside-ka gelaysa iyo qayb outside-ka soo fadhiisanaysa haddaba daawadeedii ayaa maanta hortayda taala waxa aan kaa codsanaya baaraka allah fiik adiga i daawanaya sidan uu videogayga kuu cajabiyey iyo sidan aada uga heshay in aad u gudbiso ood u gaadhsiiso walaalo badan oo dhibaataysan oo xanuunkan iyo dhibkan haysto ha isku koobin keligaa baaraka allah fiik midka aan anigu ka doonayn ka raadiya waa in waalidkayga sadaqa jaari ay u noqoto qof kasta oo ku caafimaada ilaahay ka abaalmariyo inaan anigu ajar iyo xasanaad ka helo in aad adiguna ku ladnaatood ku bugsato oo daawo iyo shimbir allah subxaanahu wa tacaala kaaga dhigo maqsadkaygu waa intaas hadda hortayda waxaa yaala waa xabaasuudan dabcan waxaynu garanaynaa isha sixirka xasadka hargabka xumadda xanuuno badan oo aan soo koobi karin inay daawo ka tahay dabcan dhammaanteen waan isla garanaynaa xabaasuuda waayahay kan waa qasilkan waxa aynu isla garanaynaa in meydka lagu meedho in dadku ku meedho in timaha la marsado in munaafacaadkiisuna waaxay wasakda qofka ku jira oo dhan ayuu nadiifiyaa marka qasilkan waxa uu kaa difaaci doonaa sida aan kuu sheegay markaad u isticmaasho insha allahu tacaala waan kuu sheegayaa wuxuu kaa maydhi doonaa uu la dagaalami doonaa uu masixi doonaa xasadkii jiidda hore fadhiyey ee xaggan hore jidhkaaga ka dagaalamayay wax kastood qabato kaa xumeynayay ficil kastoo istiraahdo samee kuu diidayay bulshada iyo dadka kaa reebay shaqadaad istiraahdo tagna lugaha kaa qabanayay ayuu kaa meedhi doonaa xabaasuudanna waxa ay dibadda usoo tuuri doontaa oo ay la dagaalami doontaa dagaal kula sameyn doontaa gudaha qaybta gudaha gashay ee maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo ku ciyaaraysee kule waad xanuunsanaysaa adigoo aan xanuunsanayn oo wax xanuuna aan qabin qaybta shakiga ku gelinaysa ee gudaha ayay xabaasuudana dibadda usoo tuuri doontaa inta ay ka daba gasho meeshii oy la soo dagaalamto ayay soo dhirbaaxi doontaa soo tuuri doontaa haddaba qaabkeebaad u isticmaalaysaa baaraka allah fiik insha allahu tacaala mar kalean ku leeyahay sheegaree walaalo gaadhsii walaalo badan si ay daawo uga helaan baaraka allahu fiik adiga laftigaaga ku anfacayaa sheegareeso meel gooniya gasho disti biyo ah baad soo qaadaysaa weliba disti weyn oo biyo ah biyo qadarkoogu leegyihiin biyo aad ku qubaysan karayso biyo qadarkoogu leegyihiin biyo aad ku dhaqan karayso oad ku meedhan karayso disti ay ku jiraan baad soo qaadaysaa waxa aad soo qaadaysaa hal sufur oo buuxa oo xabaasuud ah hal sufur oo xabaasuud oo buuxa ayaad soo qaadaysaa afka ayaad u gelinaysaa afka markaad u geliso dabka ayaad saaraysaa waad karkarinaysaa waad karkarinaysaa ilaa iyo inta budh ay biyuhu odhanayaan xabaasuudu islabarogayso biyaha iyo xabaasuudu isdhex geliyaan
marka aad karkariso ay si fiican u karkaraan dabka ayaad ka dejinaysaa halkaas ayaad dhigaysaa xoogaa marka uu qaboobo waxa aad soo qaadaysaa 2 sufur oo qasil ah qasil 2 sufur oo qasil ah soo qaadaysaa gadhka ayaad u gelinaysaa insha Allah taala waad isku walaaqaysaa marka aad isku walaaqdo waad daboolaysaa xoogaa baad daynaysaa saacad hadda noolaadaan ay isku jiraan ay isdhex galaan si wanaagsan ay isku walaaqmaan saacad kadib waad soo qaadanaysaa waad ku meedhanaysaa dhammaan jidhkaaga oo dhan baad ku meedhanaysaa dhagaha saasaad ugu meedhaysaa sankaaga saasaad oranaysaa afkuun baad ka ilaashanaysaa gudaha inuu galo dhammaan xubnahaaga oo dhan kilaakisha farahaan yacni labadan lugood dhexdooda si fiican xagga dambe si fiican baad ugu meedhaysaa dhabarka meelaha jeexan oo dhan si fiican baad u gelinaysaa aad ugu meedhanaysaa bal hadda fiiri hadalkaygu ha kuu dhaco baarakallahu fiik haddaad doonaysa daawo haddii ay calaamadahan aan sheegay oo dhan ku haystaan oo aad doonayso in aad ka daawowdo calaamadahan aan kuu sheegay xasadkana aad doonayso inaad ka daawowdo meel kasta oo jidhkaagu isaga imaado saas ayaad u kala dhex marinaysaa biyaha saas ayaad u kala dhex marinaysaa meel kasta indhahan saas ayaad u marinaysaa sanka saas ayaad ila oranaysaa dhagaha saas ayaad oranaysaa afkuun baad ka ilaashanaysaa korkaaga oo dhan saas ayaad u marinaysaa saas markaad ugu meedhato dharkaaga xidho 4 saacadood ku joog 4 saacadood 4 hours ku joog iska joog gurigaaga 4 saacadood marka ay ku dhamaato biyo cad kaga meedho biyo cad 2 jeer kaga meedho marka hore meedho biyo cad sidaa isaga wada rog marka aad meedhatay aragtay inaad si fiican u meedhatay mar labaadna ka daba meedho imise jeer baad meedhatay 3 maraad 3 jeer baad meedhatay mar waxaad ku meedhatay qasilkii iyo xabaasuudii ayaad ku meedhatay waad isku radisay waad isku daysay 4 saacadood kadib baad meedhatay markaad saa u meedhatay aragtay inaad si fiican isaga wada meedhay qasilkii iyo wixii oo dhan si fiican isaga meedhay meel kastoo biyuu kaa gaadhay inaad si fiican u meedhay markaad aragtay mar labaad baad haddana meedhanaysaa oo isla waqtigaas ah marka hore waad seegtay si fiican baad isaga rogtay markaa labaad baad haddana isla markii baad meedhanaysaa bes imise cisho ayaad samaynaysaa miyaad garanaysaa walaal 4 يوم 4 cisho 4 أيام amba 4 days ayaad meedhanaysaa isticmaalaysaa sidaa aan kuu sheegay maalin walba aad samaysanaysaa tilmaamta aan kuu tilmaamay sufur xabaasuuda 2 sufur oo qasil ah iska jir qasilka lama karinayo hooy yani kaa hoos bixin sufurka xabaasuuda iyo distiga biyaha la isku karkarinayaa markay isku karkaraan si fiican waad dhigaysaa markaad dhigto xoogaa uu qaboobo 2 sufur oo qasil aad ku daraysaa waad daboolaysaa saacad baad u daynaysaa saacad markaad u dayso kadib ayaad ku qubaysanaysaa meel walba aad gaarsiinaysaa ilaa iyo afkaaga mooye marka aad ku qubaysateed meel kasta saa gacantaada u mariseed biyaha gaarsiiso kadib dharkaaga ayaad xidhanaysaa 4 saacadood baad joogaysaa 4 saacadood markuu kugu qalalo kugu rado ayaad haddana meedhanaysaa marka aad ka meedhateed aragto inaad ka nadiifowday dhammaan kor iyo hoos aad nadiif ka noqotay ayaad haddana mar kale meedhanaysaa 4 cisho gudahood xasadkii gudaha ku jiray ee aan ka soo sheekeeyay tan ayaa soo laadi doonta dibaddana usoo tuuri doonta kii dibadda kaa fadhiyay ee jiidan hore ka dagaalamayay wax walbana kaala dagaalamayayna kan qasilkan ayaa meedhi doona oo nadiifin doona marka baarakallahu fiik had iyo jeer ale xabaasuudan haddaad xabaasuud aragto lagugu daaweynaya xabaasuudu had iyo jeer ale waxay ka soo dagaalantaa gudaha qofka ayay ka soo dagaalantaa xabaasuudu had iyo jeer ale daawada xabaasuudu mar walba gudaha qofka waxa inside-ka ku jira ayay ka soo dagaalantaa qasil haddii daawo lagugu qorana qasilku mar walba wuxuu ka dagaalamaa xagga sare xagga hore qofka ayuu ka dagaalamaa jidhka xaggiisan hore wixii markaasi kusoo biiray ayuu ka dagaalamaa markaa saas la soco sheekare ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan inoo weydiinayaa shifo iyo daawo inuu inooga dhigo dad badan oo
daawooyinkii aan soo gudbiyey ku daawoobayna oo iisoo sheegayna waxaan idin leeyahay hambalyo ilaahay ha idiin siyaadiyo inta walaalaheena xanuunsanaysana allaha ka dulqaado allahuma aamiin yaa rab baaraka allahu fiikum kaliibkan ku anfacaya ayaanu kaa hoos bixin